kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta inaga mudano caalamka meel walba oo aad ka joogtaan ee xilli walba ay idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayahana ha idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoola socotaan inoona tixgelisaan taageeraha buuxdana aad inoogu tihiin waan idinkaga mahad celinaya waxaana idin leeyahay Soomaaliya meel walba caalamka aad kaga sugantihiin farxad reen bash iyo barwaaqo iyo horumar ku noolaada haddii aad channelka ku cusub tahay waa xusuusin fadlan subscribe saar kan baleelkana furo videogan like gareeya sina share gareeya wanaaga samaha iyo saaxiibtinimadeena waa in aan mar walba ka talina sida ay ummadeeni hore ugu sii socon lahayd qof walbana qofka markaasi wax u geysto oo ugu samri lahaa haddii Ilaahay nagu garab galo maanta muuqaalka aan inoo hayo miiska maskaxda maanka iyo muruqaba aan saaran doono waxa uu yahay boqorada isteelka iyo xaajigeeda oo wacdaro aad u yaab badan soo dhigay social media kadib markii aan arkayna aan in badan isweydiiyay su'aashani waa ay soo warwareegtay maanta waxa looga baahan yahay ama looga baahan yahay in aan helnaa jawaab sax ah ama mid waafi ah sida ay kula tahayna waxa fasax u tahay inaad commentiga ku dhiibatid haddii aad fikir ahaan iyaga raaci doonto iyo haddii aad kaga hor imaan doontana mid aad xor u tahay weeyaan waxaase inaga mamnuuca oo aan mar walba ku dadaali doonaa in aan qof bila aadam ah sharafkiisa cirdigiisa qofnimadiisa iyo karaamadiisa inaan intaba faragashano waayo waa inaga mamnuuc diiniyana waa inaga mamnuuc akhlaaqiyana waa inaga mamnuuc ay ma jirto wixii afkaar ayaan dhiiban doonaa bal aan guda galno videoga maxuu yahay haddaba social media waxa qabsaday videogani oo aan doonayo inaan idinla wadaago intaan idin falaaqeynin ka hor waxa ay tahay waan idinla wadaagi doonaa waxyaabo badan oo aan idin hayeen waan idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay idmo bal muuqaalka waxa uu yahay daawasho wacan taqaaliga niyow waxbaan arkniyow Soomaalida xiriirin taqaana marka qaar been beeshay marna run beeshay iyo anagu labadeedu ma isku eegna waxa dhaadaan taqaana gabadh waa ninkeedii ninna waxa weeyaan gabadhiisa miyaan isku eegna sida aad soo wada daawateen waxa ayna weydiiyeen su'aal cajiib ah su'aashani inta badan dadka Soomaaliyeed waa ay dhax taalaan wax su'aal jawaab looga hayana ma jirto walow ay dadka ku kala qaybsan yihiin afkaarta ah arrinkaasi anigu waxa ay la tahay waan idinla wadaagi doonaa aduna waxa ay kula tahay qalbiga ha ku haysan faraha dhaqdhaqaaji oo nala wadaag anigu inta badan ma qabo in ay labada qofood way dhici kartaa dad isku eg in ay isguursadaan laakiin dad markay isguursadaan kadib isku ekaanayo anigu ma sheegin xagga dabeecadda hadii ay noqoto balse waxa ay iyagana weydiiyeen ekaanshiya xagga muuqaalka ah sida aynu jecelnahay mana ahan dad isku dhow ama muuqaaliyan isku eg adoo hadii ay wax kula tahay waad nala wadaagi doontaa balse la yaabka ugu badan waxa ay tahay lamaanahani dadku waxa ay isweydiinayaan waa lamaanaha labaad iyo saddexaad iyo afraad waxa ay yihiin mid ahaan la arka social media iyo si faraxsan ku wada qaadanayo waana mid ugu badan aan u jecelahay in aan fiidiyoyadooda soo qaato aniga oo og in ay dadka intooda badan aysan aad markaasi jawaabaha ay ka bixinayaan aysan qurux badnaanin lamaanahani waa lamaanaha adkaysiga waa lamaanaha ugu adkaysiga badan social media waxaan ku leeyahay marka taa waxaan ognahay in gafaf badan iyo waxyaabo badan oo aanan caadi ahayn loo geystay inta ay isguursadeen iyo inta ay isguursan ka horba dadka u geysanayana ay isugu jireen dad iyada u dhow markaasi asxaab la ah ama family la ah iyo dad ka fog oo aan markaasi isku dhaweyn oo ayna waxba iska galin laakiin dhammaan marka la isku wada keeno oo la isku soo wada duubo waxa ay mar walba u saaxiib yihiin ka hor imaanshiyaha iyo in la dhaleeceeyo waa dad u saaxiib ah mid ugu dambeysay waxa ay ahayd in xitaa maalmihii ugu horeysay meherkooda oo dhacay oo hadda aan jeclaa inuu sanad iyo xoogaa ka soo wareegtay in lagu sheegay in ay yihiin lamaana markaasi ilma aanan markaasi sharci ahayn oo uur galay anagoo ogeyn in aysan waxaas jirin meesha ay ku soo degtay xitaa ha u timaado isaga jacaylkiisa dartiis adduunyada lama oran karo lamana dhihi karo qof dhihi karana ma jirto jacayl ma jiro qof walba jacaylka waxa uu awoodiisa tahay ayuu u sameeyaa balse sameynta oo isaga sameynaya ma arko sameynta qofka kale waxa uu sameynayo ayuu arkaa qof walba waxa ka qarsan isaga waxa uu yahay ma jirto qof aanan nusqaan lahayn ma jirto qof aanan dhaleeceyn iyo ceeb lahayn ma jirto qof aanan qof kaamil ah adduunyada ma jiri kartaba
lamaanahan way adkaysteen balse waan su'aashan ayaa uga jawaabi doonaa anigu ahaan markii xaggayga loo eego iskuma ekidin laakiin waxa iska shabahdaan oo aad iskugu dhowdihiin dabeecadaha iyo isfahamka taasina bil aadamka qaar way ka sinaan karaan ekaanshiyaha sabuuqaaliyan anigu ma qaba inaad isku egtihiin oo aad isku muuqaal tihiin oo aragtida aad mid ka tihiin adigu daawada waxa ay kula tahay waad nala wadaagi doontaa haddaba waxaan aad mar walba u jecelahay marka oo aan jecelahay inaan dadkana ku dhiirigeliyo in social media dadka lamaanaha ah ama dadka nolol wadaaga ah ama dadka xiriirkooda uu adag yahay inay social media si lamaanaha ay ugu bataan walow ay lamaanahan yihiin lamaana markii horeba social media ku jiray markaasina qof walbaba uu social media dhinac kaga jiray balse ogaw markii la arkaa boqolkiiba 90 idinko faraxsan idinko is haysta oo gacanta is haysta oo yani is ixtiraamayo markii la arko dad badan waxa ay ku tahay xanuun iyo bogtaaniyo aan la arki karin qof ayaa يعني وان وذا أرجنا دمانتين بس إذا إنه وذا أجنا وان أرجنا دت هدي أدنى شاي حتى أنا جعلين إن أي أركان أديكو نورش على فرحات أي كجرتو سببت أي أوي ليان وحكي لما أهان وشيطانكي يا نفتودي وحياة بدن أي صورنا يان قفنا مجعلة إن أتكسر مرتين حتى هالنقطة قف أديكو ورالك أما قف دد أهان كودو تاسي ما أهان يعني لياب أما بقى مكان كون نقون كرو وايد دبيعها shaydaanka ayaaba sida iska ah marka lamaanahani waxa ay ka mid yihiin dadka la dhiban yani marka xitaa fiiri filmaanta fiidiyoyada ay soo duwaan dib u fiiri marka soo dhaxgashid dadka qaar xitaa waxay shaki gelinayaan jacaylka isku qabaan anagoo og matalaad intaan la eg inaynan sameey kareynin annaga maanta Soomaali hadana matalaad intaan la eg ama qofna inuusan matali kareynin jacayl intaan la eg iyo waqti intaan la eg iyaga kooda waa mid ay ka run sheegeen kadibna ay ku dadaaleen sida ay ugu guuleysan lahaayeen iyagoo ugu dambeyntii gaaray halkii ay doonayeen oo yoolkoodii ahaa meesha ay doonayeen waa ay gaareen lamaanahani boqorada isteelka iyo haykal xaqiiqadana waxa ay tahay haykal iyo boqorada isteelka waxa dhacday xitaa in badan idinkoo aanan ogeyn laga dhax shaqeeyay sida lagu kala geyn lahaa xilligii oo Malaysia uu tagayay waxa soo ifbaxday hadii aad xasuusataan in ay kala tageen ama ay isfreen taasi waxa ay ahayd dadka waday barnaamijyadaasi dad iyada asxaab la ah social media na asxaab kula oo aad wada taqaanaan dad caan ah laakiin waa ay suurta gali weysay kadib markii ay la kulmeen caqabado badan oo ka yimid xagga dadka iyada markaas taageeraha u ah oo dad badan ayaa ka soo hadlay anaga ka mid ahayn oo runta ka sheegay in aysan markaas wax freena u jirin isagana uu barnaamij u baxay barnaamijkana ugu dambeynta uu soo suurta gali waayay kadibna ay isku soo laabteen way dhici kartaa inay bil aadamka isqabtaan dad wada nool oo meel ku wada degan ama meel ku wada nool waa khasab inay isqabtaan laakiin isqabashayaasi ma ahan kala tag in loo macneeyo ama dadka iyaga taageeraha u ah in laga dhaadhiciyo ama family jiro oo waalidiin iyada ama ba dadka fog oo iyada markaasi arxan u ah dadkaasina in laga naxiyo ma qurux badno waxaana mar walba jecelahay in uu samaha sareeyo Soomaalinimadana hawarto mar walba waxaan idin leeyahay farxad bash rayn iyo barwaaqo ku noolaad meel walba ku sugan tihiin fiidiyogaani waxa ay kula tahay nala wadaag fiidiyooga la gareysina share gareynta mid xay ku kulmi doonaan waxaan idin kaga sii tagayaa